ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أخوتي في العقيدة، أولا سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ثانيا waxaan u mahadnaqayaa bacd allahi subxaana wa tacaala walaalada diyaariya kulankan iyo markaska reer abu hurayra, maamul iyo shacabkiiba. marka labaad, haddii aan dariskan bilaabo, dariska lay dhiibay waxaa la yidhahaa miftaax asacaada zawjiya, furaha badhaadhaha qoyska ama sareedada qoyska. qoyska muslimka ah inuu liibaano oo uu badhaadho ku noolaado ama sareedo ku noolaado, furaha wuu u baahan yahay. asal waxaa islaamka oo aynu garanaynaa inuu yahay nidaamkii alla soo dejiyo lagu dhaqmo, sidii alla uu doortay dadku inay u dhaqmaan, rag iyo dumar, qoys mid yar iyo mid weyn, in loo dhaqmo. laakiin waxaan isku dayeynaa bal bacd alashyaa inaan tilmaamno. waxaynu tilmaami karnaa ziwaajku ama guurku waa sharika bayna zawjayn, ama waa nolol ay wadaagayaan laba qof oo markii hore ajanabi ka lahaa, dabeetana isaga raalli noqday inay nolosha isku darsadaan. waxay yidhaahdaan shirkadaasi waxaa asal u ah, ra'samaalkeeda koowaad bay yidhahdaan huwa alxub. shirkadaasi ra'samaalka keliya ay leedahay ee asalka ka ahi waa kalgacal. ilaahina subxaanahu wa tacaala qur-aanka wuxuu ku tilmaamaya fi suurati alacraaf: huwa aladii khalaqakum min nafsin waaxida wajacala minha zawjaha liyaskuna ilayha. ama fi suurati الruum: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. إلهي وحت الماما يا سبحانه وتعالى، إلهي آيات كيس ووين لغقرت وحكم ده أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، إن ورقة ama aadam calayhi salaam laga soo bilaabo uu ka abuuray ama uu u yeelay lamaane. lamaanaha waxaa laydinku yeelay baa layidhi litaskunuu ilayha, inaad ku xasishaan. asalka guriga markaa waxaa asal ka ah in loo dhisto lilitminaani waasukuuni waalraaxa, qofku inuu dego oo xasilo oo meel nolosha dhibteeda kale uu ku soo ilaabo ay noqoto, meeluu nashaad iyo firfircooni ka qaado marka uu ka baxaya inay noqoto. ilaahayna wuxuu tilmaamaya wajacala baynakum mawaddatan waraxma, dhexdiinana waxaa alla yeelay subxaana wa tacaala mawadda, kalgacal iyo naxariis baa la yidhi. kalgacal iyo naxariis. waxaynu markaa isku dayeynaa sida qur-aanku tilmaamayo xidhiidhkaasi guriga ka dhexeeya ama ninka iyo haweenta uu qabo ka dhexeeya waa xidhiidh xeel dheer oo waxyaabo badan tilmaamaya. ilaa xad ilaahay ku tilmaamaya hunna libaasun lakum wa antum libaasun lahun.
هبا أتهين إذنكو هوين كان قبطان هوين إدادنا هبا يكوتاي داركو قفك بني آدم كاي صدح شايبه وقاطع أولا وحو قاطع عاديات الحياة نسكي عليه كليل قبو واحد شراي نسكي قربه ثانيا وحو قاطع لستر عورتي عوردي سينو كو أسترته ثالثا وحو قاطع للزينة وللتزين إنو إسقرحيه ninka iyo gabadhu intaba way isu yihiin saddexda shayba ninka iyo gabadhu way isu yihiin waa meel uu qofku hadduu nin iyo hadduu gabadh yahayba uu ku dego ku xasilo waa meel uu cawradiisa iyo sirtiisa iyo waxa u qarsoon oo dhan uu ku kaydsado oo uu dhigto waa meel uu quruxdiisa ku muujiyo idan qofku wuxuu qurxoon yahay markuu yahay qof reer leh oo degan ayuu nolosha quruxdeedii iyo dhadhankeedii hayaa saa daraaddeed baa ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ku tilmaamayaa ragga iyo dumarku inay libaas isu yihiin dhar inay isu yihiin gurigaasi sidaa ilaahay qur-aankiisa ku sifeeyey waa kalaamu rabbi alcaalamiin gurigaa ilaahay sidaa ku sifeeyey ee ku tilmaamay in hullaysu yahay ama in lagu xasilayo ama in mawadda iyo raxma dhexdooda ay taalo ayaa waxaan isku dayaynaa gurigaasi inuu sii jiro waxyaabaha keeni kara ee sacaadada iyo badhaadhaha ka muujin kara waxaynu leenahay dhowr shay baa jira dariskan intiisa badan waxaan isku dayaa inaanan ka hadal xuquuq iyo waajibaadka iyo baabkaasi laakiin waxaan ugu horraysiinayaa ka hadlayaa fannu tacaamul qaabka wada dhaqanka qaabka wada dhaqanku maadaama asaaskiisuba uu xub iyo kalgacal yahay waa inuu ku salaysnaadaa kalgacalkaasi iyo sidii loo xoojin lahaa jacaylkaasi ama kalgacalka ama isu hilowgaasi inuu beermo oo koro oo kobco sacaadadu markaa waxay ku xidhan tahay in laga ilaaliyo munaqasaadkiisa ama waxyaabaha waxyeelaya in la taqliiliyo kalgacalkuna waa wax la beero sideedaba xubbiga waxay yidhaahdaan kalgacalku waa tilka alxaala alatii tusbix fiiha sacaadatu shaksin aakhar daruuriyatan lak waa xaalad bay leeyihin qof kale liibaantii adiga ay daruuri kuu noqoto aad ku faraxdo qofkan aad kalgacalka u haysee jeceshahay waxaad la jeceshahay wanaag oo dhan waa xaala aad qof kala rabto liibaantiisu adiga ay ku farax gelinayso waxaan rabaa markaa laba dhan inaan ka sawiro dhan inaan ka sawiro ninka dhan kale inaan ka sawiro gabadha marka aan taa tilmaamayo awalan kalgacalka iyo xubbiga ninka iyo gabadha u dhexeeya inta badan dadku marka jacayl iyo kalgacal iyo muxibo iyo cishq iyo warkaa marka la sheego dadka inta badan waxaa ku soo degdega caqligooda mas'alat aljamaal quruxda iyo dhismaha qofka iyo hay-adiisa nacam quruxda iyo cadamada iyo weynida iyo waxaasi waa fitrada insaanka bay ka mid yihiin sideeday fitriyan bay ay maxbuub yihiin waayo ilaahayba qur-aanka markuu inoo mana sheeganayo ee la sheegay xoolo in laynina siiyey oo ilaahay inoo abuuray oo aynu wax ku raranayno oo ku guurayno ayaa la yidhi walakum fiiha jamaalun xiina turiixuun wa xiina tasraxuun qurux baa idinku sugan xoolu markay sii dareerayaan iyo markay soo dareerayaan baa la yidhi yacni jamaalku waa shay fitrada asalka qofka bini aadamkaa ka mid ah laakiin gurigu jamaalkaasi ku saabsan hay-ada iyo bidhaanta waxaa ka muhiimsan jamaalu lafcaal waxa la yidhaahdo quruxda dhaqanka ka muhiimsan quruxda dhaqanku ama jamaal lafcaal ayaa sameeya kalgacalka joogtada ah waayo jamaalka jasadigee sare ee muuqda waxyaabaha ugu horeeya ee lumaabuu ka mid yahay marka muddo la wada joogo da-baa iska socota saa daraaddeed waa tarahulaat baaba waa muuqaalkii hore isbeddel baa markiiba ku yimaada laakiin waxaa loo baahan yahay inuu gurigu ku dhisnaadee kalgacalkiisu ku salaysan yahin waxa weye ka asala jamaal alafcaal sida awgeed
reerka saciidka ahi bay yidhaahdaan waa reerka shuclat alxubbi aanay marna gamaarin. shamaca kalgacalku waa reerka aan la daminin bay yidhahdeen ee aanu damin. si kale marka loo tilmaamo waxyaabaha dadka isku xidhay caatifada ahi waa reerka aanay marnaba naaqusin. laakiin ma aha shaygaas shay sida wajbat alghadaa inta mar la isu dhigo la dhergo saa la ahaado. walidaalika waxay yidhahdaan xubbiga iyo kalgacalku waxaa laga yaabaa caawa inaan ku hadlayo luqo ay ku fiican tahay intii guur ku jirta un inay dhegaysato amase inta haabanaysa ag joogta. walidalik maadaama sacaada zawjiya aan ka warramayo waa runtii luqo gaara. waxaa la yidhahdaa kalgacalka waxaa loo yaqaano sidiisaba wuxuu leeyahay funuun. kalgacalku ama jacaylku wuxuu leeyahay funuun lagu taqdiyeeyo ama lagu beero qaab loo koriyo loo kobciyo. mithaal aan axaadiista nebiga iyo ku noqono sunnada nebiga salawaatu ullahi wasalaamu calayh iyo qur-aanka. waxaa laga yaabaa inay inta badan dadka ay agtooda ghariib ku tahay iyadoo jacayl nin iyo gabadh dhexdii jooga laga warramayo in haddana qur-aan iyo xadiis aanu kutubulfan kama warramayo. laakiin waxa aan tilmaamayo dhami waa waxaan daliil uga keeni doono min kitaab illaahi subxaanahu wa tacaala iyo min sunnati nabiyi salawaatu ullahi wasalaamu calayh ama dhaqankii nebiga iyo saxaabada iyo dadkii wanaagsana. kalgacalku wax beerma horta inuu yahay nebi maxamed baa wuxuu tilmaamayaa ashyaa dadka muslimiintii hadday sameeyaan isjacaylkooda uu badanayo. مثلا النبي يقول عليه صلوات الله وسلامه عليه تهادوا تحابوا حديث صحيحة هديات كيساسية أو حيث هدية واسجعلها نيسان يعني إن هدية الله يساسية وحي كم تهي وحيارها بيره دتكو إن الرالي اسكن نغضان وحريد في عن وكالقعل ودحمره. وحكم إذا النبي يقول صلوات الله وسلامه عليه حديث كيسنا صحيح مسلم كيالي لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. شنو قال لي ما يسمى النبي يقول لا يا إيمان لا يدنك هلا موياني إيمان لا يدنك هلا ما يا إلا يا محي أشجعلاتان موياني. هذا النبي يقول حط المامي كالقعل كاسي مسلمين تدحدوا دقليا سدوا أكري لها. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم. ما يدن تصيابوا النبي يقول لي صلوات الله وسلامه عليه أعمال يا أفعال هذا سميسان أشجعلان إنسان. وحنا النبي يقول لي أفشوا السلام بينكم. سلامته بديع سلامته وكلامك طيب كي هلكو كبل عمه قفك ولالك أي مركز صهر السلام عليكم من كنت هذا وهذا الدعاء نيسا قفك أنتو كوي السلام عليكم معناه يدو حويا ربي هكو دوره قفك أنتو كاسهر بحي كوغو بلابا يا هذا إلهي من كبر يا إنكو إلاليه وقفك القعلو كووضه هدو كوغو علعليه مركز سكستادو عريسنيد هدو يمكن السلام عليكم كو يداهدو هدنا هدو مركز كسور بحدا السلام عليكم كو يداهدو لبا صدح جير هداد افكا بورتو مركز دنبه وتسكن نفسيسا وعليكم السلام بعد هذا يعني وقف مسلم ومركز صور بحي الهي كو بريه رب السماوات والارض قف كو ويدينين الهي كو دوره كما كيسن كريسيد مركز دنبه يعني النبي محمد وحط المام يا صلوات الله وسلامه عليه مركز انو حبغو wax la beeri kareeyahay dadku inay isjeclaadaan wax la beeri karo oo kalgacalku beerma inuu yahay bal quraanka ilaahay wuxuu leeyahay idfa' billati hiya ahsan fa idha alladhi baynaka wa baynahu adawa kaannahu waliyyun hamim ba ilaahay marka xuma lagu sameeyo wanaag kaga jawaab ba ilaahay subhanahu wa ta'ala oo maxaa dhacaya fa idha alladhi baynaka wa baynahu adawa ki colaadu idin dhaxaysay wuxuu noqonayaa buu ilaahay leeyahay kaannahu waliyyun xamiim ay sadiiq qariib oo ku jecel ayuu soo baxaya. qofkii dhibta kuu geystay ee kaa filayay inaad ka aargudato ama aad ka aargoosato ama aadna aad cala alaqal fa in caaqabtum bimithli inuu sugayay intii uu kuu geystay in cala alaqal inaad u geysato haddaad weliba wanaag u gasho waxay keensanaysaa qofka agtiisa inaad dib lagugu soo hadal qaadin daa inuu isagu wax ku yidhaahdee ويرى ورنكاسي أبال بيقول إيه بران وحا كسميو هدنا ونقاسو إيقالي سدراد محن مسائل كانوا تلمامي وحويان حبك فطري يا هوري والله يا با إنن إنن كستو إسكور سنة يا مركي إسكور سين إنن كالقع الفطري نحمر وصورتقال لكن
inuu kaasi joogto ahaado oo gurigan isjacaylkaasi uu ku noolaado oo hadday dadku gaboobaan uu la gaboobo oo sidii jacaylku u jooga wuxuu u baahan yahay afcaal iyo dhaqan abuuraya inuu kalgacalkaasi joogo waa taa masalada u baahan markaasi in wax la iska weydiiyo oo la tilmaamo waa taa masalada aan isku dayaya markaa wixii alla ka fudaydiyo subxaanahu wa tacaala inaan soo naqliyo amase soo guuriyo idan kalgacalka qoyska iyo gurigu waa matlab ama waa arrin u baahan sanaaca mushtarika bayna azawjayn waa shay u baahan ninka iyo gabadhuba inay wada beeraan waxaan isku dayaya markaa kalimaad alxub walcaatifa aljayaasha ay ka muuqato inaan ka soo naqliyo min kalaami culamaa'i salaf qura inaan ka soo naqliyo culammadii hore ee muslimiinta iyo waxyaabahay saatan ka yidhaahdeen awalan waxay culammadu yidhaahdaan kalgacalku kow aan nin iyo gabadh u kala qaadno gabadhu haweenaydu inay ninkeeda jeclaato oo jacayl dhaba jeclaataa waa min addiin waana sifo ninkuna uu jecel yahay hadduu gabadhiisa kalgacal ku haysto iyo jacayl uu ka dareemayo waa waxuu ninku jecel yahay taa waxaa u daliila ilaahay qur'aanka markuu sifaynayay dumarka jannada jooga oo ay ka mid yihiin dumarkii mu'minaadka ahaa ee dunida iimaan ku dhintay ahlu jannaa noqda ka mid a dumarkaasi jannada jooga ilaahay markuu sifaynayay subxaanahu wa tacaala wuxuu ku sifeeyey inay yihiin kuwa raggooda jecel inna ansha'nahunna inshaa'an fajacalnaahunna abkaaran curuban atraaba baa ilaahay yidhi waxa weeyaan baa ilaahay yidhi curuban haweenka jannadu gabadha muslimadii inay ahlu jannaa la dhaqan noqotaa waa waxa diintu ku yeedhayso yani ahlu jannuhu waa dad dhaqan fiican jannada waxa yaalla waa dhaqan wanaagsan saa daraaddeed gabadha muslimada ee dunida joogtaana inay dhaqankan oo kala yeelataa waa shay matluuba loo baahan yahay walowlaa haddii aanu ahayn ninku mid ku farxaya inay haweentiisu jeceshay haddaanu ahayn ilaahay uguma sheegeen nimcada uu jannada ku helaya inay tahy yani miyaa la odhan lahaa jannada nimcooyinkaada nimay helayso waxaa ka mid a caynkaa lowlaa aanay ahayn min fitrati inuu ku farxayo ku badhaadhayo oo ku kala badanayo hadday haweentiisa ka muuqato dhaqan ama hadal ama socod ama muuqaal ama wax soo jiito oo muujinaya inay jeceshahay hadday ka muuqato sidaa awgeed bal kutubu tafsiir aan tilmaamo kelimadda curuban aw curban labada qiraa'o ka adoontaba akhriya waa isku mide waxay yidhahdaan mufasiriintu 5 qowl bay ka leeyihin buu leeyahy ibnulqayim fii zaadi lmasiirkiisa qowlka koowaad ay culammadu ku fasireen waxaa ka mid ah alcurub waxa weeyaan buu leeyahy annahuna almutaxabibaatu ila aswaajihinna waa sida uu cawfi ibnu cabaas ka warinayo waana qowlka uu mujaahid laga soo naqlinayo saciid ibnu jubayr ibnu qutayba imaam izajaaj culamadaasoo dhan bay ku tagtay wuxuu leeyahay curubanta haweenka jannada lagu sheegay waxa weeya annahuna almutaxabibaatu ila aswaajihinna waa sharxi doona waa kuwa isjeclaysiinaya raggooda qowlka labaad wuxuu odhanayaa curubka ay ku fasirayaan annahuna alcawaashiqu waa kuwo iyaga cishqigu hayaba kii hore muxuu lahaa waa kuwo isjeclaysiinaya ninkeeda kana wuxuu leeyahay iyada lafteeda ayaa cishqiga haya waana sida ibnu cabaas cali ibn abi talxa uu ka warinayo waana qowlka uu ku tegay xasan iyo qitaada iyo muqaatil iyo mubarad iyo mujaahid laftiisu qowl labaada uu leeyahy qowlka saddexaad ee curuban waxay ku tilmaamaan alxasanati tabacul waa gabadha sida fiican ula dhaqanta ninkeeda isna abu saalix ayaa ibnu cabaas ka warinaya ibnu cabaas saddexda qowlba waa laga warinaya markaa waana qowlku ku tegay abu cubayda qowlka afraad ee masalada tan ay ku tilmaamaan waxa weeyaan oo ikrama laga wariyo alghanijaat alghanija jaariyatun ghanija marka la yidhaha ghanajku waa takasurun wa tadallul waa isjejebin waxay yidhahdaan waa wax ka mid ah
وسائلك حبك سكلا مركا الله تلمامه ابن زيد قول كيسا قدام بيوحلي الحسنة الكلام أحد المفسرين مثلا دانا قواشي سسوقوريه ابن عاشور في تفسيره وحورنا يا عرب وجمع عروب بفتح العين ويقال عربة بفتح فكسر فيجمع على عربات كذلك وهو اسم خاص بالمرأة وقد اختلفت أقوال أهل اللغة في تفسيره وأحسن ما يجمعها أن العروب كلمة تنوح لي وكلمة دمر كوكارة ولغو صفية أهل العلم وما أهل اللغو مركا يفسر أيانا معنى يالك لقد سميت المامان بوري لكن وحان شيغي يا بوري وح كل مية هوين كان جنة صفة لغو شيغي عروب قبرنا لغو صفين يا معنى هدو حويان بوري المرأة المتحببة إلى الرجل وقبرنا ننكي استعلي سينيسا أو التي لها كيفية المتحببة بوري أما وقبرنا dhaqankeedu uu ka muuqdo inay rabto ninkeedu inuu jeclaado wain lam taqsid التحبب buu leeyahy oo muxuu ku tilmaamaya wuxuu leeyahy بأن تكثر الضحك بمرأة الرجل أو المزاح أو اللهو أو الخضوع في القول أو اللثغ في الكلام بدون علة أو التغزل في الرجل والمصاهلة في مجالسته والتدلل وإظهار معاكسة أميال الرجل لعبا لا جدا وإظهار أذاه waxaa ku fasiraya sheekha reeyoleeyay carruubka waxaa la yidhaahdaa gabadha ninkeeda isjeclaysiinaysa ama uu ka muuqdo dhaqan muujinaya inuu ninka kane jeclaado ha noqoto buu leeyahay dhaqankaasi mid ku saabsan qosol ama kaftan ama hadalkoo la jajabiyo ama wax tagazul tilmaamaya yacni wuxuu tilmaamayaa un kayfiya wuxuu kala soo guuriyo uu yidhi waa waxyaabaha marka ay mas'aladu xaaraanta tay quraanku uu diiday yani mas'alo ogsoonow xalaasha iyo xaaraantu gabadha ajnabiga inay hadalka jajabiso ama ay ka muuqato inay ninka doonayso ama waxaas iyo dhimo xaaraan quraankuna si cad ay nusuustu tilmaamaysaa cagsigu waa xalaal bay culimadu leeyihiin marka cagsigu waa matluub yani nabigu halku ka tilmaamay ninku hadduu gabadhiisa u tagana ajar baa loo qorayaa waxay yidhahdeen oo maga intaanu shahwadeeda gudana ajarna loo qoro oo haddaa la tagtaan buu nabigu yidhi maxay xaaraanta haddaa lagtaan intaa miyaan dembi laydiin qoreen walidalik ay ibnu caashuur wuxuu leeyahay waa sida ilaahay baa leeyahay falaa takhdacna bilqawli fayatmaca aladii fii qalbihi marad waxaa la yidhi hadalka ha jejebinina oo yuu idin dalbin kii qalbigiisu bukay laakiin markay joogto labadii xalaasha ahaa hadalka waa inay jajabisaa si uu u dalbo kii xalaasha u ahaa waxay mamnuuc tahay maxay khaarija ziwaaj inay warka kan la timaado ama se ilaahay wuxuu leeyahy walaa yadribna biarjulihinna liyuclama maa yukhfiina min ziinatina caga ayay dhulka ku tumin haweentu markay halkaa marayso si loo maqlo maxay jinjimaheediiyo waxay sidato hadday gurigeeda joogto odaygeeda la joogo cagaya meeshay jajabin kartaba ha jajabiso si odaygeeda ay u soo jeedin karto yacni waxa aynu leenahay khaarijka mamnuuc buu ku yahay wuxuu noqonayaa maxay fii beytiha inuu noqdo shay diin ahaan ku bannaan bal acmaasha ay tilmaamayaan cikrima wuxuu kaloo ku tilmaamaya alcaruub ay almaliqa buu leeyahy maliqu waa kelmaddan idhaa hebel waa mutamalliqa halka ka timi maliqu waa qof hadalka jajabiyo oo qofka isu dhul dhigo oo duceeyo oo intii loo baahnaa in ka badan bay idhahdeen ama markay joogto bay leeyihiin beytka ninka iyo gabadhiisa haweenaydu inay dhul isdhigto oo ismiskiiniso oo ducayso oo barido oo odaygeedii hiya almaliqa buu leeyahy hiya alcaruub ayuu ku fasiraya bale culamada qaarkood ka fog baabay ku fasireen oo waxay idhahdaan caruubnimadu hiya alghalima bay idhahdaan غالمدنا وهيجان شهوة النكاح من المرأة والرجل لبضبا صرف إمام البخاري مركو تفسيره في حديث البخاري في تفسير العربة أي الغنج بكت المامي والغنج في الجارية واحدة تكسر وتدلل وإسشبين إيا دي إمام الغزالي في إحيائه وحليه
هي العاشقة لزوجها المشتهية للوقاع به وبه تتم اللذة. سيدا وقاد وحن لنا هوانيدا مسلمكا قرية كان سوء للسنان كارو وحوبة هنية قرية إنو أكادا قرية جنة كجري قرية إنو أكادا محي قرية جنة كجري قرية جنة كجري هوانتا جوكتا هدي اللي يدي وعربنا ترابا تاني انت أي مثالي كرتوين أي متشا wax ceeba markaa ma aha marnaba waxa ilaahay xuro lacaynta ku sifeeyay inay gabadha muslimadii ku sifowdo ceeb ma aha ceeb markaan leenahay waxaan u jeednaa ma aha wax laga khajilo ma aha alxayaa qayb ka mid waa madmuum qayb ka midina waa mamduux waxa sharcigu baneeyay in laga xishooda waa madmuum bay leeyihiin kuma jirto maxbuubaadka waxa la jeceliya kuma jirto bal quraanku markuu tilmaamayay ragga iyo haweenka waxa la yidhi uxilla lakum laylata as-siyami ar-rafathu ila nisaikum hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna wa min aqwali al-mufassirin fi ar-rafath waxay yidhahdaan aslu lugha rafathka waxa lagu tilmaamaa qofka oo ku dhawaaqa ifsaax bima yukna anhu أو قول الفحش بين هذا الكا مركو قفكو عادي ومال كهذا يوكخشلو أما سأنو كل رنين إنه يرادو قولي سوى الله يسمر لكتابه وحلاق خشلا ما يعلم استدردت كلمة الرفث أي علماء دولي يبان له أديك سدي جماعة ومقدمات كيس اللوغة شهدو إذن ماشة تنوحى عن تلمامي وحويان الأستاذة مريم الناجم باوحي لا هاي هوانتو وكتلة متأججة من العواطف في ترسيدة دبا وكوس كالقعلة وكرية بيتري لكن قفكو حكي ما دابا إلى هاي dareenka xishoodka ee la siiyay qaldan ee kala garan weyday boolada wixii u baahnaa in laga xishoodo iyo waxaan u baahnaa in laga xishoodo ama si kale hadaan u tilmaamo bay leedahay waxa loo qaatay in qofka waqaarkiisa iyo simadiisa iyo shakhsiyadiisa iyo deganaantiisa ay wax u dhibayso cilaaqada zawjiga waxa ku salaysan ee baabkani waxba uma dhimaan bal waxay dhaadaan gabadh badawiyada reer miyiga ayaa qamiis cas iyo waxbay qaadato xinxinaysatay dabeetana tusbax bay qaadatay baa la yidhi meel bay fadhiisatay way wardiday qolaa waxay ku yidhaahdeen ma abcada hada min hada labadana waddo kala foga inaad cusbarato oo mariya xidhxidhato oo iska dhalaaliso haddana aad wardi meel la fadhiisataa waa laba kala fog bay ku yidhaahdeen markaasaa waxay tidhi bay yidhaahdeen beyt ay leedahay lillahi minii jaanibun laa udayicuhu walilahwi minii walkhalaacatu jaanibu waxay tidhi ilaahay dhan buu igu leeyahay aanan rabin inaan dayaco dheeldheelkiiyo maradhigadka ninkayga xaggiisana qayb buu igu leedahay iyana aan la rabin inaan dayaco bay leedahay yani labaduba waa bannaan yihiin tanna waa baab kale oo ilaahay baneeyey markay gurigayga joogo kanina waxa weeyaan bay leedahay wardigii aan u haynayey oo aan barayay walidalik ayaa ibn casaakir baa wuxuu soo naqliyaa بلال بن أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري وتابعي أبو موسى الأشعري بقى ووجي صحابي اللي أورنشري صحابة النبي كتر سنة إسنا أمير بصرة أيها هانشري أيا قولا جلسدي سوالله فرد دبو حكيري ما العروب من النساء والقرآن كوا كان عروبا ترابا شاقيه هوان كواتي تعروب كاي قال فماجو dadkii waa buuqbuuqeen markii ninkii ugu weynaabe amiirka magaaladan uu kelmadda tan weydiiyay waa la buuqbuuqay dabeetana waxa soo galay baa la yidhi isxaaq ibn abdullah ibn al-harith isxaaq ibn abdullah ibn al-harith ibn nawfal ibn al-harith ibn abd al-muttalib ibn al-hisham ayaa soo galay in hashimiya nabi maxamed ay isku abtirsiiyeen alayhi salaatu wasalaam oo isna culamadii waqtiga joogtaya dadkii markuu ninkan uu soo galay buu wuxuu yidhi qad jaakum man yukhbirukum fasaluuh war hadduu yimaadaba nin ka warramaya ee isaga weydiiya buu ku yidhi haddaa idinku ka warwareegteen oo sheegi weydeen kan aalu beytkaabaa ka warramaya weydiiya buu ku yidhi waa maxay baa la yidhi wuxuu yidhi alkhafira almutabadila lizawjiha waa ta xishoodka badan markay meesha kala joogto
ninkeeda markay joogtana waa ta u furfurana u mar dhigata isu dhul dhigta dabeetana gabay buu tiriyay uu leeyahay waa ta la yidhi yucribna cinda bucuulihina idaa khalow wa idaa hum kharajuu fahuna khifaaru markay raggooda la joogaanna waa curubka kuwa lagu tilmaamay xagga dabadda markay u baxaanna waa khifaar yacni alxayaa shadiid baa la yidhaha khufriga waa kuwo aada u xishood badan sidaa awgeed waxaynu tilmaamaynaa gurigu si uu u dhisnaado oo guri saciida uu u noqdo waa inuu noqdaa guri kalgacalkiisa uu joogto yahay kama waramayno cisharadii ahayd bilmacruuf in lagu dhaqmo iyo baabkaasi maaha baabkaynu tilmaamayna si awgeed buu nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh isna wuxuu tilmaamaya xadiidka jaamicu saqiirka ku qoran saxiixa uu albaani ku tilmaamayo alaa ukhbirukum binisaa'ikum min ahli ljanna ma idin sheegaa buu nebigu yihi salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh haweenkiina ahlu jannada ah sifada koowaad uu nebigu siiyey wuxuu ku sheegay alwaluud alca'uud calaa zawjiha التي إذا آذت أو أوذيت جاءت حتى تأخذ بيد زوجها ثم تقول والله لا أذوق غمضا حتى ترضى النبي يقول لي صلوات الله وسلامه عليه هوانكي نكو أهل الجنة وحوينا الودود وهطني كذا جعل كبرنا كسي فوضى جعلك كان ahlu jannaha haweenka muslimaadka ee dunida jooga janno galaya sifadii loogu horeysay waxa kamid ah inay noqoto maxay alwaduud alca'uud tu jecel ninkeeda oo wax dhalaysa oo ca'uuda yani caa'ida bilkhayr wa nafci ila zawjiha khayr iyo wanaagu ninkeeda kula noqonaysa ta haddii ay wax dhinto ama iyada la dhibo intay ninkeeda gacanta qabato tidhaahdaa والله أنا وحبرنا ضمن إن لا ترالي نقطة موياني هدي حتى إذا الله دبابو النبي يقول يا مسه إذا واحد بتاع مركز تبع أوتاجن إني كده الرالي جالسه ولذلك يا لورا دويل قبل الله يدعى مرايكن كله بو كنا يوبحيان ترجمة ديسا الزوجة المستسلمة